sida muuqata ma ahan go-aan loo wada dhan yahay walow xukuumadda ay tahay hay-adda ugu sarreysa siyaasad ahaan iyo dastuur ahaan dalka go-aamadeedana ay ahayd in la wada qaato jamhuuriyadda iyo waxa gudaheeda oo dhan ay u hoggaansamaan. haddana waxaa moodaa marka la fiiriyo xaalka soomaaliyada maanta lagu jiro inay muhiim ahayd in la galo wadahadal dhab ah dadkana la isu keeno. sidaas daraaddeed waa go-aan dhinac ah oo aanay soomaalidu wada lahayn, ayna tahay in wax la xeeriyo oo dib la isugu noqdo. mucaaradkii haatan way doodayaan, laba maamul goboleedna way maqan yihiin, marka khilaafkii doorashada soo lasma dhihi karo wuu sii ballaartay. si marka loo fiiriyo si allabana bedel wuxuu ku fiican yahay isbedel loo wada dhan yahay. si gaara qofka raba inuu wax bedelo iyo kan la bedelayaba ay qayb ka wada noqdaan. hadda sida xukuumadda ay u tabar la-dahay oo ay u tala xun tahay waxa kasii liita wax hadda aan u naqaana mucaarad oo aan mucaaradba ahayn. maamulada laftigooda malaa'ig ma ahan. si gaar ah garowe iyo kismaayo marka la fiiriyo madax adeygii hal cabaaraba kasoo muuqday iyo taariikh ahaan waxa ka dhexeeya muqdisho iyo kismaayo marka aad fiirisid maha arrin wanaagsan. walow marka aad moodid si xukuumaddu inay u yara keli talinayso, waxaad moodaa kismaayo garowena inay halmaansan yihiin muhiimadda ay leedahay midnimada iyo wadajirka soomaalida. khilaafku wuu sii xoogaysanaya. khasabna waxaa noqon doonta aakhirka in taladu ay ajaanib faraha soo geliyaan oo la wada idmo dhammaantood, qaarkoodna amar la siiya qaarkoodna la idmo dhammaantoodna mar kale gogolka la isugu keeno. marka waxaad moodaa inay ka fiicnaan lahayd in la afgoobaatado oo hadda inta goori goor tahay oo aanay faragelin shisheeye iyo iscadaadinu imaanin, in soomaalidu ay u tashato masiirkeeda. sidaas daraaddeedna ay wada hadasho fadhiisato. marka haddii dowladda ay go-aankeeda ku adkaysato oo ay guda gasho hanaanka doorasho oo mucaaradkii iyo maamul goboleedyada qaarna ay maqan yihiin, sharciyadda arrintaas maxay noqon kartaa? haddii sharci la raacayo intaaba maanaan soo gaarnayn. ilaa carsa waxaa lala xarbinaya dastuur kumeel gaara oo loo maaro waayey. waxaa lala xarbinaya in dhab u heshiin ay dhacdo qabaa'ilka soomaalida, muqdisho iyo hargeysa, xukuumadda iyo maamul goboleedada. waxaa lala xarbinaya in hay-adihii amniga ahaa dib loo qaabeeyo oo la tayeeyo. waxa intaana soo gaarsiiyey ee keenay in laba maamul loo xayirnaado, in xukuumadda ay go-aan keligeeda iska gaarto, in mucaarad aan mucaarad ahayn uu meelaha ka qaylqayliya. waa u hoggaansanaan la-aanta sharciyadda iyo guud ahaan xurmada aan loo haynin, hadday ahaan lahayd shareecada islaamka, hadday ahaan lahayd dhaqankii suubanaa ee soomaalida shareecada kasoo jeeday, iyo hadduu ahaan lahaaba dastuurka kumeel gaarka ay soomaalidu leedahay. sidaas daraaddeed walaa xukuumad walaa maamul midnana mid sharciyad xorriyad iyo xurmo midnana u hayaa ma muuqdo. qof walbana waxaad moodaa in waajibaadkii saarnaa uu ka horumarinayo dan khaasa iyo xuquuqaas ayaa ka maqan. bursaliid, ugu dambeyntii aqalka sanadka oo kale doorashadiisu waxay ka dhacaysaa maamul goboleedyada. haddii marka laga tashado labadaasi maamul goboleed sooma soo baxayo baarlamaan ay laba maamul goboleed ka maqan yihiin? waxaan aada ugu rajo weynahay in go-aankan keligeed ay xukuumadda qaadatay aysan ka dhabayn doonin oo koox soomaaliyeed oo ahlul caqliga ilaahay idinka istaagi doonaan, waxna la isu soo dhadhaweyn doona. haddiibase ay dhacdo sida xukuumadda ay ugu adkaysato in doorashadii loo dareero, waxay noqon doontaa in lasoo dhiso aqal sare iyo aqal hoose ay laba maamul ka maqan yihiin si nasiib darro ah. laakiin aakhirka haddana waxay noqon doontaa inta wada hadal in la galo inay noqoto in labadii maamul dib looga soo daro. inta marka ay ajaanibu faraha la geli lahayd waxaa la qaatay, xataa hadday ahaan lahayd wada hadal oo aanu cadaadis iyo handadaad midnana ku jirin, in soomaalidu ay tashato, caqligana uu shaqeeyo, ilaahayna laga yaabo, maslaxadda caamkaana xoogga la saara, midda khaaska la iska halmaamo. mana ahan arrintaan arrin aan muqdisho keliya kula dardaarmaya, waa arrin aan raba inaan si gaara kismaayo iyo garowena ugula dardaarmo.